dhammaan arrimihii waa la diyaariyey qorshaha howlgalkuna muddo bila ah ayaa lagu soo shaqaynayay oo ma aha wax laablakac ah ama wakhti degdeg ah la qorsheeyey ninkii Rafi Etienne ee howlgalkan hogaaminayay waxa uu ahaa mid aad u degan oo kalsooni buuxda qaba xaaladiisuna ahayd mid sugan oo aan kayrkayr lahayn dareenka ah in qorshahan lagu fashilmaa waxa uu ahaa mid aad u hooseeya oo dhammaan kooxda howlgalkan loo diyaariyey waxa ay qabeen kalsooni buuxda oo ah in ay guul ka gaari doonaan qorshaha ay u socdaan oo ah in gacanta lagu dhigo Adolf Eichmann oo ka mid ahaa saraakiishii naasiga Jarmalka ee Yuhuudda gaagaabiyey ama xasuuqay Rafi Etienne si gaar ah waxa uu ahaa nin aad ugu dareen qaba in qorshahoodani najaxayo inkasta oo howlgallada noocan oo kale ahi leeyihiin xaalado warwar ah iyo maxay noqon haddana waxay kooxdani ahaayeen kuwa aad moodayso in ay kalsooni dheeraad ah qabeen Rafi Etienne iyo kooxdiisii howlgalkan loo soo carbiyey waxa ay u shaqaynayeen daqiiqadahaasi si qarsoodi ah oo waxa ay ku guda jireen bilowga howlgalkooda iyaga oo isugu tagay gurigii saaxiibkooda Mossad hore u sii kariyey kaasi oo ku yaalay magaalada Buenos Aires gaar ahaan sidii aan soo sheegnay xaafadda toddobaad koox gaar ah oo uu hore u sii dirtay Rafi Etienne waxay warbixin ku siiyeen in ninkan la doonayo in la aftuubo ee Adolf Eichmann uu markii hore ka haysan jiray gaari Mercedes ah balse toddobaadadii ugu dambeeyay uu wata gaari yar oo bascaasi ah oo uu ku yimaad inta badan suuqa lagu magacaabo Garibaldi oo ku yaala bartamaha caasimadda Argentina ee Buenos Aires isaga oo ku adeegta baskaasi yar kuna shaqaysta 10kii bishii May 1960 subaxnimo Isniin ah oo saacadda caasimadda Argentina ku beegan tahay 7 subaxnimo Rafi Etienne oo ahaa taliyaha kooxdan aftuubka samaynaysa ee Mossad ka tirsani waxa uu isugu yeedhay kooxdii howlgalka qabanaysay waxaanu uga warramay sida uu doonayo in aftuubku u dhaco waxa uu si gaar ah ugu xil saaray 2 nin oo kooxda ka mid ahaa in ay noqdaan darwalka iyo darwal xigeenka gaariga aftuubka loo qorsheeyey ee lagu samayn doono oo la doonayo in Adolf Eichmann lagu soo rido waxa ay ahaayeen 2 nin oo aad u kala yaqaana magaaladan Buenos Aires ee ay joogaan oo jid kasta mari kara qorshahan waxa uu u sheegay haddii wax ku dhacaan darwalka hore in uu ka labaad u noqdo reserve ama kayd oo kaaliye u noqda waxa kale oo uu 2 askari oo kale u sheegay in ay noqdaan kuwa aftuubka geysanaya ee gacanta ninka ku dhigaya ee gaarigaasi soo saaraya 2 nin waxa ay si gaar ah u qabeen tababaro la xidhiidha dhinaca aftuubka oo waxa ay ka tirsanaayeen koox Mossad si gaar ah u carbiyey gaar ahaan ugu carbiyey howlgallada noocan oo kale ah sida waxa uu Rafi Etienne ku diyaarsaday 4 nin oo kale ah 2 dirawal iyo 2 nin oo aftuubka soo geysanaya oo ninka la doonayo inta ay si qarsoodi ah isugu soo jabiyaan gaariga dhexdiisa ku soo hubsanaya gaariga kooxdani diyaarsatay waxa uu ahaa mid madow oo dhammaan muraayadihiisa aan waxba laga dhex arki karin qorshaha aftuubku waxa uu ahaa in uu galabnimada maalintaasi xigta si habsami leh u dhaco ama u qabsoomo gaar ahaan fiidnimada 8 fiidnimo ee bisha May tahay 11 sanadka 1960 gaarigii la diyaariyey ee ay saarnaayeen 4 nin waxa daba galay 2 gaari oo kale oo ay midna saarnaayeen 3 nin midna 4 nin oo uu ku jiro hogaamiyihii howlgalkan Rafi Etienne sidan waxa ay dhammaan kooxdan tiradoodu ku noqonaysaa 9 nin waxaana guriga aftuubka loo diyaariyey ku haray 2 nin oo kale oo dhinaca xidhiidhka u qaabilsan Mossad kuwaasi oo howlgalka si toos ah ula socodsiinaya xarunta guud ee Tel Aviv 3 gaari waa ay isdabagaleen waxaanay u jihaysteen dhinaca jidkii aan soo sheegnay ee Garibaldi oo uu ku sugnaa ninka la aftuubaya oo waqtigaasi gaarigiisii yaraa ee bascaasiga ahaa ku xoogsanaya ama minibaska ahaa ku xoogsanaya ma jirin meesha wax warwar ah oo ay qabeen kooxdani sidii aan hore u soo sheegnay wax badan oo ay caqabado hore u fulayeenna waa ay ka soo gudbeen waxaanay joogaan waqtigii ay hawshan kala tuuri lahaayeen cidna cid lama hadlayso oo kooxdani intooda badan waa ay aamusan yihiin balse waxay ku kala amar qaadanayaan xaaladda ay u tababaran yihiin ee gaarka ah waxay gacanta ku hayaan sidii ay hawshan uga midhadhalin lahaayeen Rafi Etienne oo ahaa hogaamiyihii kooxdan falka geysanaysa waxa uu eegayay saacadda uu gacanta bidix ku xidhan yahay waxaanay sheegaysay saacaddu 8:00 fiidnimo waana waqtigii gudagalka hawshan bartanka loo galay dhammaan gaadiidkii falkan lagu fulinayay ee ay 3 kooxood kala saarnaayeen waxa ay soo gaadheen iyaga oo qadar masaafo ah isu jira jidkii lagu balansanaa ee la filayay
in uu ku sugnaa ninkii afduubka loo geysanayey oo la sheegay wakhtigaasi in uu watay gaadhigii yaraa ee minibaska ahaa. jidku wakhtigaasi waxa uu ahaa mid aan sidaas u saxmad badnayn oo gaadiidka joogay ama marayay jidka hareerihiisu ay ahaayeen kuwa teelteel ah. jidka dhinaciisana gaadiid fara badani kuma ay baakin garaysnayn. sidaas darteed si aan u shaki u iman gawaadhidii kooxdani wadatay waxa ay isu baahiyeen si aan looga shakiyin masaafo kala durugsan. 8:40 daqiiqo ayay jidkaasi soo gaadheen. bas ayaa goobta joogay u muuqaal ekaa kii ay filayeen in uu wato ninka la doonaya in la afduubo. waa Adolf Eichmann, balse ma uu ahayn. waanu dhaqaaqay. waxa kale oo isa soo taagay mid kale. saacaddu durbo waxa ay ku dhowdahay ama ku sii siqaysaa 8:50 daqiiqo ee fiidnimo. nasiib wanaag waxa goobtii isa soo taagay bas labaad oo kale. waaba ninkii Adolf Eichmann oo gaadhigaasi minibaska ah ka soo degaya. Raffi Etienne waxa uu sheegay isagoo oo mar dambe ka sheekeynaya xaaladdaasi sidan: Adolf Eichmann waxa uu ahaa nin daalan markii uu baska ka soo degayey. waxa uu u muuqday nin hawl badan soo qabtay. waxaa laga yaabaa in ay shaqadu ku badatay oo uu saacado badan hawlo kala duwan soo qabanayey. waxaa la dareemayey in uu daal ka muuqdo. waxa uu ahaa jidku mid bannaan oo dad sidaas u badani aanay wakhtigaasi goobta marayn. nin khabiir ku ah arrimaha afduubka oo kooxdayda ka mid ahaa ayaa igu yidhi, war istajiya, mise waxa uu furayba albaabka gaadhigii aan saarnaa ee dambe maadaama uu isagu xagga dambe ku jiray. waan ka daba degay waxaanan u dhaqaaqnay xaggii Adolf Eichmann. waxa uu u socday sidii nin degdegsan oo kale. waxaana sidhi ninku waa kan tallaabada dheeraynayee malaha waxa uu u socdaa xaggaa iyo gurigiisa oo uu doonayo inuu degdeg ugu casho tago. ninkan ila socday ee khabiirka ahi waxa uu doonayey in afduubku si aad u deggan oo aan la dareemin u dhaco. waxa uu ahaa mid u tababaran arrimahaasi. sidaa darteed waxa uu mar walba iga codsanayey in aanan wax degdeg ah la iga dareemin oo aannu si deganaanshe ka muuqdo u dabagalna ninkan. 1 daqiiqo wax ka yar ayaan ku tala galnay in aannu ninka ku qabanno. gaadhigii aannu wadanay ayaa naga daba yimid oo na soo garab galay si aan la dareemayn. ninkii ila socday iyo aniga ayuu yidhi Raffi Etienne oo hadalkiisa sii wataa, waxa aannu la simannahay ninkii Adolf Eichmann. waxaanan qabannay qoorta iyo dhabarka. waxaanan ku tuurnay gaadhigii aannu wadanay ee na garab marayey. inta aannu garabka ku soo riixnay ee aannu u soo dhoweynay gaadhiga ayaannu si degdeg ah qoorta iyo dhexda iyo garbaha qabannay, kadibna ku hubsannay daaqaddii gaadhiga inaannu ka gelinno. daaqadda ayaan furay, isna qoorta iyo dhabarka ayuu qabtay. waxaanan ku tuurnay gaadhigii. annana waan soo fuulnay si degdeg ah oo aan laga dareemin jidkii aannu maraynay. keliya qabashadiisani ugu dambayn waxa ay naga qaadatay wax aan ka badnayn 5 ilbidhaqsi, ugu yaraan ilaa ugu badnaanna 10 ilbidhaqsi wax ka yar. waxa uu ahaa Adolf Eichmann nin fahmay sida xaaladdu u dhacday. aad baanu galka indhaha uga soo saaray isaga oo walaac xoogani ka muuqdo, balse cidna lama hadal. neef weyn ayaa ka soo baxaysay, kaarboonkana iska soo saarayey isagoo oo aad u naxsan oo neef tuuraya. intaas ayuu yidhi Raffi Etienne oo muddo dambe ka sheekaya howlgalkan. aan ku sii soconno qisadeenninne dhammaan kooxdii waxa ay garwaaqsadeen in ninkii Adolf Eichmann gacanta lagu dhigay. si deggan ayaana gaadhigii minibaska ahaa loogu qaaday. labadii gaadhi ee kalena u soo dabagaleen iyaga oo qadar u soo jira, sidoo kalena aan aad uga sii fogaan, balse sheedda ka soo bidhaansanayey. Raffi Etienne waxa uu ahaa ninkii isagu ag fadhiistay Adolf Eichmann isaga oo caawinaya ninkii kale ee tababarnaa ee isagu qoorta soo qabtay ninkan la afduubayey. waxaanay geliyeen dhexdooda iyaga oo hareeraha ka galay. isla markiiba waxa ay labada gacmood kaga jebiyeen katiinad weyn oo culus iyaga oo labadible u xidhay. awood ahaan aad bay uga xoog weynaayeen labada nin isaga. sidaas darteed isaga oo aan isdhaqdhaqaajin karayn ayay katiinadda ku dhufteen oo ay ku jebiyeen. Adolf Eichmann waxa uu ahaa nin neef tuuraya oo dhidid weyni ka soo booday. waxa uu ahaa nin isdejinaya oo aan isku dayin in uu dhaqdhaqaaq badan sameeyo ama wax qaylo ah aan doonin inuu sameeyo. sidaas darteed waxa uu si kooban isaga oo af Jarmal ku hadlaya ku yidhi erayo u dhigan oo macnahoodu yahay sidan: maxaad sidan oo dhan iigu xadgudbaysaan? waryaa tihiin, isku kay sheega, maxaad iga doonaysaan? intaas ayuu yidhi. aad baanu isku dejinayey isaga oo kolba nin eegaya. waxa uu eegay Raffi Etienne iyo ninkii kale. mar kalena waxa uu eegay labadii dirawal ee kuraasta hore fadhiday. kooxdan uu hogaaminayey Raffi Etienne waxay ahaayeen kuwa muraayadaha oo dhan gaadhiga u dallacay, kadibna baastoolad aad u gaaban balse ah nooca khatarta ah ee aan xataa la maqal marka ay rasaastu ka dhacayso waxay caloosha kaga qabteen
ninkii Adolf Eichmann waxaana tallaabadaasi ku kacay Rafi Etienne oo kelmado af Jarmal ah ugu halceliyey ninkii ay afduubeen isaga oo u sheegay in aanu isku dayin in uu qayliyo ama dhaqdhaqaaq aan loo baahnayn sameeyo haddii kale ay madaxa iyo caloosha kaga dhufan doonaan 2 xabadood oo aanu ka kicin balse ugama ay jawaabin su'aalihii uu weydiiyey ee kale ee ahaa inay isku sheegaan cidda ay yihiin waxa kale oo ay ka gaabsadeen waxa ay ka rabaan cidna lama hadlayn isaga waxaanay sidaa aamuska ah ku gaadheen gurigii ay ka soo duuleen ee ay qorshahan ama sharqoolkan ka soo maleegeen waxay ku tageen si aamin ah oo nabadgelyo ah hawlgalkoodiina qaybtiisii koobaad ku soo dhammaaday balse aan la ogeyn sida xaalku noqon doono qaybta labaad iyo waxa xigi doono qorshahan khatarta ah ee imika uun bilaabmay bahadahaynu eegno 3 mayl oo ay u sii socdeen gurigoodii u karaysnaa ee ay daqiiqada ka hor yimaadeen ayay durba soo gaadheen kooxdii waxa ay soo dejiyeen ninkii Adolf Eichmann ee ay soo afduubeen Rafi Etienne ayaa amar ku bixiyey in dharka laga siibo dhammaan oo aad loo baadho kadibna loo dhiibo surwaal gaaban iyo garan gacmo gaab ah intaa kadib waxa ay ka baadheen dharkiisii wax qalab ah iyo wax agab ah oo kale bal in uu sito gaar ahaan Rafi Etienne waxa uu amar ku bixiyey in si gaar ah looga baadho qalab uu uga shakisanaa in uu ugu shaqayn karayay sirdoonka waddanka Jarmalka ee SS loo yaqaano waxa ay baadhitaano kooxdani ku samaysay ninkan ay soo afduubeen waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen oo ay aad uga baadheen qoortiisa labadiisa dhagood xaggooda dambe labada xusul kilaankilooyinkiisa iyo labada jilib xataa waxa ay ka baadhayeen wax calaamada ah ama qalab ahi inuu kaga xidhan yahay dhammaan wax cusub waa ay ka waayeen wax aan ka ahayn waraaqa yar iyo qadar lacag ah oo ay ka heleen jeebadiisa saaxiibayaal qaybtanina maanta halkaas ay noo joogto la soco insha Allah qaybtiina 15aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh